nin ayaa wuxuu caayay Abuubakar radiyallahu can, nebigana meesha ayuu fadhiyaa. ninkii wuu caytamay, Abuubakarna wuu aamusan yahay weli. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu gudagalay in uu la yaabo arrinkii uuna dhoola caddeeyo. markii uu badiyey ninkii hadalladiisii iyo caydiisii ayaa Abuubakar ku radiyey hadalladii uu dhahay ninkii hadal ka mid ah. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuu carooday wuuna istaagay. waxaa ka daba kacay Abuubakar isla markaa asiga oo weydiinaya sababta. wuxuuna dhahay rasuulka allow maanta dham ayuu i caynayay oo adigana waad iska fadhisay. markii aan u radiyey hadalladiisa hadal ka mid ah waad carootay waadna istaagtay. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaa jiray Abuubakar oo malag oo u radinaya asiga mar walba uu wax ku dhaho. markaad adiga u radisayna hadalladiisa hadal ka mid ah shaydaan ayaa meesha soo dhex galay. anigana ma ihi mid la fariisanaya shaydaanka.